السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. walaalyaal, waxaynu socotay silsiladii aynu kaga hadlaynay nafta iyo tarbiyeynteeda. nafta tarbiyeynteedu laba qodob ayay ku xidhan tahay oo laga run sheego, waana labada qodob ee ugu muhiimsan. qodobka koobaad waxa weeyaan wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ina faray ee uu inagu waajibka yeelay oo nafta lagu ilaaliyo. qodobka labaadna wuxuu noqonayaa wixii khasaaraha inagu ah ee ciqaabta inagu leynooga digay inaynu iska ilaalino. waa labada qodob ee ugu waaweyn marka nafta la tarbiyeynayo in loo ilaaliyo. haddaba waxyaabaha laynaga nahiyeyna way fara badan yihiin. waxyaabaha layna faray amba sunna ahaan ha laynoo faray amba waajib ahaane iyaguna waxa weeyaan way badan yihiin. waxaynu markaa maanta biidni illaahi tacaala aynu soo qaadan doonaa waxyaabaha laynaga nahiyey ee laynoo diiday, sidaynu nafteenna uga tarbiyeyn layn cudurrada ugu waaweyn ee markaasi loo baahan yahay in la iska ilaaliyo. markaad weel wax ku shubanaysid, inta aanad weelkaa wax ku shubanin, waxaad samaysaa inaad weelkaa nadiifiso oo aad iska xasho, kabacdi markaasaa dabeetana ku manaafacaada. kadaalika naftu waa sidaasoo kale. markaad xumaantii aad ka tarbiyeysid ayaa waxa weeyaan macaanka awaamirta iyo waajibaadka iyo taacadu ay leedahay ay u muuqanaysaa naftii. maanta khudbadeenna waxay ku saabsan tahay oo aynu ka hadli doonaa xaqiiqatul xasad. xasadka waxa loo yaqaano oo cudurrada ugu waaweyn oo qofka aakhiriya adduunyaba seejiye ka mid ah, xaqiiqadiisa iyo dhibaatada uu leeyahay ayaynu maanta insha allahu tacaala aynu soo qaadan doonaa inta aynu ka gaadhno. waxaa loo yaqaano walaalayaal xaasidnimada amba xasadku in marka hore aynu fahanno ayaa fiican. xasadka waxaa la yidhaahdaa inuu qofku tamaniyo nicmo walaalkii uu haysto in laga qaado oo laga baabi'iyo, amba markaa ha u dheeraata nicmadaas inay isagu ku soo wareegto qofku inuu tamaniga u raacsan yahay, amba nicmadaas inay ka halaagsanto uun ha niyoode. waa inuu qofku ku tamaniyo walaalkaagan waxaan uu haysto, hadday tahay waxa weeyaan camal adduunyo iyo hadday tahay camal aakhira labadaba diin iyo adduunyaba
inuu qofku uu tamaniyay in ilaahay uu ka zuuliyo oo nicmadaasi ay ka baaba'do xasadku ka weeye waxay leeyahay culimadu xaqiiqadiisa marka la sii raacana waxa uu noqonayaa xasadku qofku inuu ka cadhaysan yahay wuxuu ilaahay uu bixiyay ila nicmadan aad ka muraarad dilaacsantay aad ka qoomamoonaysa qofkan uu haysto waa wax ilaahay uu siiyay xaqiiqatan marka qofkaasi wuxuu ka xun yahay nicmada ilaahay uu bixiyay haddaba walaalayaal xanuunka la yiraahdo xasadku sidaynu aragnay waxa weeyaan dhibaatooyin waaweyn ayuu u sabab noqdaa sida qofku inuu qofka dilo oo kale in maalkiisa uu halaago oo kale arrimaha noocaasa oo dil wax ka weyn ma jiro ayuu qofku ku tamaniyayo xasadku uu gaarsiinaya waxaad ogaanaysaa marka tilmaanta la yiraahdo xasadku inay tahay tilmaan aad u xun waxaanay tilmaantaasi dhaqan u tahay nafaha xanuunsanaya ee jecel kaligood inay adduunyada ay ku noolaadaan oo qof ka fikiraya qofka xaasidkii inuu kaligii noolaado caafimaad helo maal helo saaqad ballaaran helo adduunyada isagu maamulo kaligii baa doonaya inuu noolaado xasadku markaa waxa kale uu yahay bawaabatul aatham dambiyada albaabka uu ka bilaabmo weeyaan xasadku walaalayaal wa bidaacatu li'am dadka naftooda aan ka adkayn ee doqonnimada badan leh waa waxa ay ka gadaan naftooda ay ka iibiyaan dhibaatooyinka uu leeyahay waxa ka mid ah xasadku inta aanad gaadhin qofkii ka fogaa waxa xaasidnimadu ay ka bilaabantaa qaraabada iyo meel dhow ay ka bilaabantaa inta aanad gaadhin qofkii cadawgaaga ahaa xasadku waxa uu kugu dirayaa saaxiibkaagii aad waxa weeyaan nafta iyo maalkaba aad wadaagayseen waxa la yiri xasadku wuxuu ugu badan yahay meesha uu ka dhaco waa qaraabada dhexdeeda waa dadka jaarka dhexdooda waa dadka saaxiibka dhexdooda oo qofka qaraabada ee xaasidkii waxa uu jecel yahay inaanu qofkiisan qaraabada ee kale waxba aanu dheeraanin oo aanu ka sharaf badanin sida oo kale jaarka xaasidkii waxa uu jeclaanayaa jaarkiisan kale inaanu wax dheeraanin aanu ka qiimo badanin maal inaanu dheeraanin jaah iyo sharaf inaanu dheeraanin awood inaanu dheeraanin qurux inaanu dheeraanin cilmi iyo aqoon inaanu kaga hormarin sidaas ayuu jeclaanayaa wakadalika saaxiibadana xasadku uu ka dhex dhashaayo haddii ay saaxiib ku yihiin labada qof wax barasho amba ay saaxiib ku yihiin shaqo amba ay saaxiib ku yihiin ganacsi kuwaana xasadku waa uu ka dhex dhashaa oo qofku wuxuu jeclaanayaa inaanu qofka kale saaxiibkii aanu kaga hormarin waxyaabaha macluumaadka ah ee la faa'iidaya inaanu kaga hormarin oo aanu gaadhin isku filnaanshiyo oo aanu gaadhin khayr dheeraada sidaas ayuu jeclaanayaa ka bacdi dabeetana xaasidnimo ayuu bilaabayaa qodobka koowaad ee markaaynu soo qaadanaynaa waxa weeyaan inaynu isxasuusino khatarta ay xambaarsan tahay amba uu xambaarsan yahay cudurka la yiraahdo xaasidku walaalayaal amba xasadku ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha nabigiisa uu faray inuu ka magan galo ayuu ka mid yahay xasadku oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiistay inuu ka badbaadiyo الله سبحانه وتعالى وكيري ومن شر حاسد إذا حسد وحتى النبي الله إله وحن كان مجنجليا حاسدك إيا الشركة وملاك إيا حاسد نمدأ إله يوان كان مجنجليا مركا كوي حاسد النبي وحيا هايين نمكي لورنشري يهودا أيا النبي حاسد يي أو رباط بدن إيا حمام بدن ملاك رسولك صلى الله عليه وسلم حسد كولا على القضب كلابات أين تصني خطرت وحنبارسية وحكمده الحسد يأكل الحسنات حسد كوح عنيا أو لدق علما يا حسنات كي إلهي أدوك دوانيسيد كيد كا آخر آدقانيسيد صلاة دا إيا خير كا إيا وناك إيا صوم كا سمينيسيد حداد حاسد تهي حسد كاقو خير كاقو مبولدق علما يا
حديث أبي داود وصوصاري من حديث أبي هريرة أي النبي أنه وحلي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب وحول النبي عليه الصلاة والسلام وروحا إذن كدق يا أبو الرسول كولي هاي حسدك محايا لي حاسد نمدو وناقي قفك وسمين إي حسناتك أي عني سابو لي النبي عليه الصلاة والسلام سدا ضبك وعنو حابد قللا أو وين عرقني ضبك وحلقوش دا وحابد قللا حابدي أتسوق قادم حيكو جبجبو بيسا ضبك سدا وعنيو وين عرقنيو دنبسبا أيو كدغيا سدا سو كلا أيو حسنات كاغو عنيا waxa kaloo nabigu leeyahay aanba wuxuu cunayaa sida waxa weeyaan waxaan loo yaqaano cushbiga oo nabaadka yar markaad soo qaadidee dabka ololaya aad saartid daqiiqadaaba uu leefayaa oo daaqa markaad soo qabatid dabkii aad sidaa ku tiraahdid markiiba dabkii uu leefayaa daaqii sida haddaba degdega ah ee nabaadka u baabiinaya dabku ayuu xasadkuna u baabiinaya camalkaagii oo uu cunaya وخطرت حسدك وحنبارسن ياهي حسدك ولا ليال وحاو كمد ياهي وحيابها إن بدن نبيك أمده وقدقي صلوات ربي وسلامه عليه منهياتك أيو كتر سيهي وحاكسوا حديثك إمام مسلم وصوصاري من حديث أبي هريرة نبي قال عليه الصلاة والسلام يري لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا وحولي النبي عليه الصلاة والسلام وارهي حيس حاسدنا وحاسد نبتك إسكايلالية حيس وحويان أن هيسكو إرينا بيعة ولا تناجشوا مركز وحكلا إيبسان بايعات هيسكو البايعين وتناجش كان نبي ونجنا هي ينودي يا وحويان قفكي وحكي إيبسانية إن متكلا ويسسو أكتاغو أو دباتنا ويرادة يمسو كاسي سنية $5 بواتي صالحان أيكو يشينية أو بايعات ويوم مريسا أم بوحويان هشيسكو مريا كبعد دباتنا وحوري عنيق اللباتن كاسي سنية ما نربا إنو كإيبسادة محو دونياون إنو كان العقد كردية أيوم بدونية تناجش كان نبيقو تلماما يا كاوي هاي وحويان هايسكو إرينا بيعي بمركا كرديغان waxaa kaloo rasuulku yiri haysu caroonina oo waxaad iska ilaalisaan waxyaabaha cadhada keenaya ee sababaya inaad cadho ku kala tagtaan waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam haysu daba jeedinina oo macna marka ay isu cadhootaan maxaa dhacaya deyn salaanta kala qaadi weydaan oo inta iska soo horbaxdaan midna xagga uu baydho ma aha dhaqankii islaamka waxa uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam barkiin yuu iibinin barka kala iibkooda macna ha isku dul iibinina beeci aad iibsanayseen oo iyadana macnaheedu waxa weeyaan walaal muslima walaal kale muslima meheradiisa wax ka iibsanaya in meheradii kale ku xigtay kii haystay intuu soo wareego oo yiraahdo imsoo ka siinaya alaabtaas uu ka siiyay markii heshiiyeen kadib dabeetana uu yiraahdo intaas iga siiyay oo yiraahdo alaabtan mid la mid ah ayaan hayaa qiimahana waxbaan ka deynaya aniga iga iibso halka maxaa ka imanaysa de uu iska celinaya marka alaabtii ka kale uu doonaya inuu ka iibsado maxaa meesha ka soo baxaysa labadii meheradood inay marka ay colaatamaan isxaasidaan isku dayaan sida isu reebi laayeen xumaani dhixdooda ay ka dhalato taana ha sameeynin abu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu rasuulku adoomihi ilaahay waxa noqotaan walaala noqda walaaltinimada ayaa waxa soo dhan la dagaalamaysa المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله وحوله النبي عليه الصلاة والسلام مسلمك ولالك كلا مسلمك كلا ويان ما ظلميه أو ما حقره أو ما دل يستبول النبي عليه الصلاة والسلام اتابعوا كيلانين يا ولالك التقوى ها هنا نبي صلى الله عليه وسلم انتو صدح قور الشعري الكلابتيسا
cabsidu halkaasay ahaatay buu leeyahay rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxaa nebigu yidhi qofka muslimka ah waxaa dembi ugu filan inuu xaqiro oo il hoose uu ku eego walaalkiisa kale ee muslimka ah qofka muslimkii qofka kale ee muslimka waa ka xaaraan dhiigiisa maalkiisa sharaftiisu intuba waa ka xaaraan buu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wakadalika xaasidnimada dhibaatadeeda waxyaabaha inna tusinaya waxa ka mid ah walaalayaal waxa uu ka dhigan yahay qofka xaasidkii qof la colaatamaya nicmooyinka ilaahay uu bixinayo cabdullaahi ibn mas'uud ayaa waxa uu laa tacaadu ni'am allah waar ilaahay nicmadiisa ha la colaatamina oo ha ka xumaanina markaasa waxay yiraahdeen oo sidee loola colaatamaya nicmada ilaahay waxa uu yiri waxa la colaatamaya alladheena yahsuduna an-nas ala ma ataahum allah min fadli kuwa ka xun ee xaasidaya waxa ilaahay uu siiyay ee dheeraada adoomihiisa kuwa ka xumaanaya kuwaas ayaa nicmadii ilaahay la colaatamaya marka qof ilaahay dagaal kula jira ayaa uu ka dhigan yahay qofka xaasidkii markaynu ogaanay khatarta uu leeyahay xasadka waxa loo yaqaan waxaynu haddana tilmaamaynaa asbaabta keenta xasadka maxay tahay sababta qofka ku keeni karta inuu xaasid noqdo saddex qodob oo kooban baynu soo qaadan qodobka koobaad waxa weeye bughdul mahsuud inuu qofku u cadhaysan yahay qofkan kale cadhadu way keentaa xaasidnimada oo marka dheeraadu uu kordho amba manfaco halkii uu nabadgelin lahaa alxamdulillah oo oran lahaa qofkii qofkan u cadhaysnaa waxa bilaabmaysa inuu xaasido waxa bilaabmaysa inuu ka xumaado waxa bilaabmaysa inuu ka tiiraanyoodo dabeetana markay balaayo ku dhacdana wuu ku farxaya markay wax u kordhaana wuu ka naxaya waa qodobka koobaad ee xaasidnimada dhaliya waxa weeyaan cadhada la isu hayo ee qalbiga la isugu hayo weeyaan taasina waa ta ilaahay subxaanahu wa tacaala yahuudda uu ku dhaleeceeyey ee uu ku tilmaamay inay ku sifaysan yihiin am yaxsuduuna annaas calaa maa aataahum allahu min fadli alla waxa uu leeyahay bal yaxsuduuna annaas waxay xaasidayaan iska daayo dadka ilaahay wixii uu siiyey ayay yahuuddu ka xaasidayaan oo fadligii ilaahay bay ka xaasidayaan waxaana ugu weyn xasadka kii nabi maxamed ay ku xaasidayeen sallallahu alayhi wasallam qodobka labaad walaalayaal ee xasadka keena waxa weeye amba dhaliya al-kibru wal-ujbu wa kibirka iyo isla weynida qofka ay ku jiraan talabada tilmaamood ay ku jiraan haddii uu arko qofkii ka yaro hooseeyay oo wax u kordheen waa uu karaahiyeysanaya ilaa waa qofka kibraya marka hore iska sarreysiinayay ka bacdi dabeetana halka waxa ka dhalanaysa inuu xaasido oo qofkii ka hooseeyay sidoo kaaga hormara qofkii liitay sidoo kaaga sareeya ayaa qofkii ku dhalanaysa kibirka isla weynida iyo ujbiga isaguna xaasidnimada waa lambarka labaad ee dhaliya ee sabab u noqda waxaanu ka mid yahay ka laftarkeedu xaasidnimadii kufaartii quraysheed nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ku hayeen ayaa uu ka mid yahay qodobka saddexaad walaalayaal waa xubbu ri'aasa wal jaah qofku inuu madaxtinimo uu jecel yahay iyo wajiga fiican iyo inuu jecel yahay ayaa ka mid ah xaasidnimada waxyaabaha keena oo qofkii tusaale ahaan madaxtinimada jecla tilmaam baa uu leeyahay uu la gaar yahay amba aqoon ha noqoto amba xirfad u gaar ah ha noqoto amba meherad waxaanay meheradaha keenin kala ay keenta ha noqoto macnaa dhaqan u gaar ah buu lahaa oo islaha kaliga un baa ku sifaysan dabeetana waxa loo sheegaya amba soo baxaya intaas oo qof oo la aqoona amba la ganacsiya amba waxa weeyaan la mido la dabeecada oo ka xumaanaya waxa uu jeclaanaya markaa kaasi inuu baabao oo aqoonta laga waayo oo meheradiisu ay gubatay baabado oo uu ka dambeeyo xaasidnimo markaana bilaabmaysa ka cudurka saddexaad ee keena waxa weeye xaasidnimadu waa madaxtinimo jacaylka iyo qofku inuu jaaha iyo sharafta uu jeclaado weeye waxa qodobka ugu dambeeya ee aynu soo qaadanayno adraarun ta'uudu ala alxaasid waxa jirta xasadka hadduu qofku moodayo inuu cid wax ku yeelayo dhibaatada koobaad waxay haysataa qofka xaasidka
saxaabiga la oran jiray Muawiya ayaa waxa uu yiri laysa min khisal sharri a'dal min al-hasad waxyaabaha sharka ah wax ka caadilnimo badan xasadka ma jira buu yiri wax ka cadaalad badan sababtu waxa weeyaan buu yiri yaqtulu al-hasida qabla an yasila ila al-mahsud qofka xaasidka bay xaasidnimadiisu ay dilaysaa inta aan qofkii la xaasidayo dhibaataba aanay gaadhinba waxa ku dhacaysa markaa 5 cuquubo inta aanay dhibaato gaadhin qofkii la xaasidayay xaasidkii xaasidnimada waday ayay 5 cuquubo haysataa cuquubada koobaad waa qammun laa yanqati murug tan dhaaftay oo aan marnaba ka go'aynin baa dushiisa ah mar kastoo kanaad xaasidiisa wax u kordhaan warwar iyo murug ayaa ku haysanaya taasi waa dhibaato musiibatu laa yu'jar dhibaato aan laga ajri siinayna way haysataa oo qofka marka warwar uu ku dhaco dambiga lagaga dhaafi jiray warwarka kani waa mid aan dambiga lagaga dhaafayn in dambiga shar uu kugu kordho mooyaane madamma laa yuhmadu biha waxa haysata dhaleecayn aanu mahadin doonin qodobka afaraad sakhatu rabbi wa ilaahi cadadiisa ayaa qofka ku dhacaysa qodobka shanaad cadamu tawfiiq yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin saliim maalinta maal iyo ubad aanu waxba taraynin ilaa qalbi caafimaad qaba mooyaane maalinkaana ilaahay tawfiiqda waafajin maayo qofka xaasidka tobanka shanta cuquubade ayaa xaasidka haysta وهلك علماء أي كيد هذين قفك حاسدكي لا ينال في المجالس إلا ندامة مجالس تمرك اللي يسقي ما دو قوم مع يوكلتها ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة ملائكة أكتدنا نعلط بوكلا عرابا ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما كلي مركم مال فريستنا ماشي أرجع حيور ور أيوكلكعا ولا ينام في الآخرة إلا حزنا واحتراقا آخرا مرك الله تغنى مرغو ينار لغو غبيو أيو كلا ما ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا إلهنا كلا كل ممايو كفوغان شيئي عدم مويانه وحكلا كل ممايو وحكلا كلا كل ممايو نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه سدح دعاء دودا إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله قفك وحويان حاران تعنا دعاء ذا إلهي أقبل مايو قفك وحويان حنت يا وحيابها كشيكينا دعاء ديس إلهي أقبل مايو قفك قلبي سحاسد نما أقوها يا مسلمين تنا كان إلهي دعاء ديس أقبل مايو خد بدأ ندم وحين وكسي عن بقادي دونا لباتوين كحسدكم مجتمعا وقصة مايو يلي وحويان حمانتا وكوكيانو iyo waxyaabaha xasadka lagu daweeyo ayaynu kaga sii hadli doonaa aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما كما أمرنا الله تعالى بقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مغتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.